bulshaweynta Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa isugu yimid kulan si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu abaalmarinayay mid kamid ah ganacsatada Soomaalida reer Toronto oo loo aqoonsaday inuu bulshada Soomaaliyeed u hayo adeeg gaar ah oo uu ku taakuleeyo dadka duruufaha gaarka ah haysta iyo kuwa xabsiyada ku jira. shakhsigani waa Cabduqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaan Nuuraaye ahna milkiilaha maqaayadda Banaadir oo ah goob barkulan u ah Soomaalida gaar ahaan bahweynta isboortiga. kulankani oo lagu qabtay hoolka shirarka ee Hotel Sheraton ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiin, culimo u diin, haween, fanaaniin, bahda isboortiga, saxaafadda iyo marti kala duwan oo ka kala timid gobolada Mareykanka iyo dalalka Yurub kuwaas oo xilliga xagaaga sanad walba u soo dalxiis taga magaaladan Toronto oo ah magaalo aad lagu yaqaan soo dhaweynta. waxaan dhihi karaa reer Toronto waxaas sameeyeen arrin taariikhi ah sababtoo ah Soomaaliya ama Soomaalida waxa uu yaqaanaa inay xafladaha kala sameeyaan qofka marka hor dhinta kadib markii maanta la xuso qofka sameeyo wanaag asoo nool oo wanaagsan waaye marka waa u kaalmeynaynaa waana u duceynaynaa waana salaameynaa ababiyaha iyo barbaariyaha u kaalmeeyaha u gargaaraha kuwa liita aadna u jecel mar walba inuu arko ee dadka oo isku filaaday oo wanaagsanaaday in ummadeena Soomaaliyeed ay garatay qofka markuu bulshada wax taro oo dadkiisa u istaago oo muujiyo wax uu dadka kale kaga dirsan yahay inaan abaal marino horta caawa farxadaas farxad ka weyn u jirto guul laakiin waxaan ku warqaatay bacdama aan magaalada Sodon iyo dhowr sano joogay qowmiyad kasta oo wadankan degan waxay leedahay dad iyagu tabaalaysan maskaxda dhimirku qofku u dhiman yahay dhaqaale ahaan kuwa liita iyo kuwa bulshadaba ka dhacayba waxaan soo ogaaday oo u kurgalay dadka noocaasa meesha ay quutaan ay tagaan ay ka qadeeyaan ay ka quracdaan ay ka casheeyaan inay tahay maqaayadda Banaadir Nuuraaye samafale waaye dadka dhan waa ka sheekeeyeen laakiin ani waxaan si gaar ahaan oo ka sheekeynaa xaaskiisa sharafta leh mudnaanta leh quruxda leh nin walbo ragga meesha fadhiya u sheegaa nin walbo oo la amaano hadda aragtiin naaga ka dambaysa I'm very sorry heerkan aniga aan gaaray waxay gaarsiiyay reer Toronto dhamaantood dadka meeshan joogaan dadkan la'aantood meeshan jooga ma joogi lahayn dadkan waxaan bixiyay iyo waxa aan sameeyay wanaaga dadkii ila soo bilaabay haaf Muxudiin Jaamac warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Toronto ee dalka Canada.